السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan kheyrtana dhegeysanaysaa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena siyaasadda iyo saxaafadda Soomaaliland oo halkan ka soo gudbino markastoo jiraan dhacdooyin iyo amaro ku saabsan geeska Afrika gaar ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba barnaamijkeena caawa waxaan ku soo qaadan doonaa waraysi gaar oo la yeelano Ibrahim Caydiid oo ah soo saaraha barnaamijka Al-Xaqiiqa. Isla barnaamijkan waxaan Ibrahim kaga waraysan doonaa arrimihii ugu dambeeyay ee ka taagnaa gobolka Sool iyo dhaqdhaqaaqyada haatan ka socda magaalada Laascaanood. Ibrahim ku soo dhaw barnaamijka. سعيدو وانكو سلام يا adiga iyo dadweynaha kale in dhageysan doonaba waanan dhawahay waata Ibrahim aad iyo aad ugu mahadsan tahay waraysiga caawa halkan lagu siinayso ugu horeyn waxaan la wada soconay in dhawaanahan xukuumadda Soomaaliland ama baan idhaahdo xubno kamid ah wasiirada xukuumadda Soomaaliland ay ku sugnaayeen magaalada Laascaanood halkaana ay ku yeesheen kulamo dhowr ah isimada iyo odayaasha deegaankaasi. Ibrahim kulamada dhowrka ah ee ka dhacay magaalada Laascaanood wax natiijo ah ama is-afgarad ah oo aynu maqalnay ma jirin. sidee Ibrahim warintaas adiga kula muuqataa maxaad si googtay? ciidow arinta Laascaanood ogaalkay waxa ii muuqataa in dee xabad maanta la isla hortaagan yahay iyo hub iyo dagaal aan u jirin ee hadal u jiro. haddii xabad iyo dagaal aanu jirin hadal socdana macnaha hadalku waxa weeyaan dee inuu iska dhammaan doonto si ay ku dhammaataba. marka anigu kama rajo xumi kamana dardaar warinayo si fiican inay wax u socdaanna way igu muuqataayo maalintii la tagay halkay taagnayd iyo maantaba dee farq weyn baa u dhexeeya. waxay la tahay inta dhimanina inay iska dhammaan doonto si guud haddaan uga warramo waa sidaas tan qaba. Ibrahim waxaad noo sheegtay in haatan wax colaad ah ama xabad la isla hor fadhiyaa aanay goobtaasi jirin. maadaama sidaa tahay Ibrahim ciidanay dawladda Israa'iil markaa ay noqonaysaa. Saciidow anoo cidda Israa'iil sheegi doona horta ishaynta iyo dagaalku waa kala laba arrimood oo aan la isgarab dhigi karin. ishayntu muran buu noqon karaa garnaqsi buu noqon karaa cabashu noqon karaa de waxa weeyaan waa ishayn baa la odhan karaa. dagaalkuna waa xabad iyo qori iyo guluf ay ciidamo kala ujeedi oo difaac iyo weerar ay iskaga soo horjeedaan. marka horta labadaasi waa laba arrin oo kala duwan. haddii aan hoos u dhaadhaco su-aasha jawaabteeda oo ahayd iyay Somaliland iska soo horjeedaan dowladdeeda waxaan u kala qaadayaa qaybo kala duwan oo kala ujeedda ah oo midiba dhan ay ku aroorto kana siman inay buuq kiciyaan. qaybahaas waxa weeyaan dad aan Somalilandba u dhalan iyo Laascaanood oo horumarka Somaliland ka dagaalamayay oo dacwada ku waday oo qurbaha kaga waday oo Mareykanka kaga waday oo Nairobi kaga waday oo arrimihii ay islahayn hor istaaga ay u suura geli weyday ayaa u soo xawilay mashaakilkii Laascaanood ayaga oo doonaya inay uga faa'iidaystaan ujeedadoodii ahayd lugta qabta iyo dhaqaaqina. waa qodob kuwaasi oo qayb bay ka yihiin. Ilhaan Cumar baa ka mid ah oo Mareykanka ah haddana Soomaaliya u timi iyo xamar iyo garowoba u timi inay arrintaas ay u sheegtay dadkeedii oo tiraa meeshii way naga fakanaysaa sida lagu qaban karaa waa sidaas lugta qabta. qoladaas Nairobi iyo Mareykan joogta iyo qurbaha kaleba qayb bay ka yihiin. waa qodob. qolad jabhaddii deegaanka u dhalatay ah oo awood military isticmaalaysay oo taageero sheegtay oo halkan isyiri way idinku jirtaa maanta ayaguna waa qodob qayb bay ka yihiin. qolo Puntland ka tirsan oo gobolkan hayb ku sheegata oo isku dayday inay qabsato dhowr goor oo guluf soo kicisay oo taageero sheegtay iyana way qayb bay ka yihiin. qaar Somaliland ah oo deegaanka u dhashay oo handaraanku ku dhacay oo haddii alla kuu roon yahay wax ruuxanaya
oo ayaguna isla cularka ku weynaysta kacdoonkan ayaguna qayb bay ka yihiin intaas waxa kaloo intaa raaca qaar luqunta ceshanayo wadaadda ah oo taarku isugu xidhan yahay dhulka soomaalida oo dhan xuduudahaba ka baxsan oo lacagtii dhaqaalihiina haysta luquntana ceshanayo baqahayo oo gobol kasta iyo degmo kasta jooga ayaguna luquntay la soo baxeen oo inay ka faa'iidaystaan arrintan ayay doonayeen oo nimanka wadaadada ah ee magacyada la baxay intaasoo kale ujeedda abaa meesha waxay ku suraakan yihiin kacdoonka laascaanood markaa dadka is hayaan waa dadkaa kale ujeeddada ee aan mid quro mid la ujeeddii aanu jirin waxaanan aaminsanahay haddii awood military aanay meeshii jirin inay iska dhammaan doonto awood military waa la tijaabiyey dadku caqli bay leeyihiin ma waalla aqoon-yahana military bay leeyihiin dad wax falanqeeyay leeyihiin dad wax qiimeynayay leeyihiin waa la qiimeeyey waxa la eegay awood military oo lagu hor istaagi karaa ciidan inaanay jirin waxa kaliya la samayn karaa in noqoto dadkoo la kiciyo oo dhaqaalo lagu kiciyo oo intaasoo kale ujeedii hadasho oo dadkii somalilanderka ahaayee meeshan deganaayo ku badhaadhay haddii alla kuu roya ay noqdaan dad laga tiro badan yahay oo waxna lagu dilo qarsoodi loo dilo waxna loo hanjabo oo magaranaysaa dee la qasbo oo loo cagaa dhulka lagu dhufto marka arrimahaas si intay shaqayn karaan waa in kooban like iyo facebook iyo haddii alla kuu roya buunbuunin iyo gabarh laga hadliyo iyo mid trawaa laydilay iyo dad laga hadliyo oo aan sii fogeyn arrintoodu intay shaqayn kartaa ama dad lagu kicin karaa wakti kooban bay noqonaysa magaaladuna cidday ka xidhmaysaa haddii alla kuu roon yahay businesskeedu ka istaagaya ardaydeedu ka istaagaysa iskuulladeedu ka istaagayaan shaqadeedu ka istaagaysa khasaaraha gelaysa ee kayrkood ka hadhaysa waa dadka deegaanka ah degmada caynabee u muuqata dee caruurteeda iskuul bay dhigataa marka cidda mashaakilkii khasaaro ku dhacaya waa dadka deegaanka ahun ciidanka ku xeeran laascaanoodee militarigaana qayla kaga bixi maayaan marka khasaaruhu wuxuunba ku dhacaya cidda layshayaana waa intaa kooxoodan kala sheegay sidaan ugu aan qabo maamulka SSC amase xubno ka mida maamulkaasi waxay mar kasta ku doodaan mowqifkooda ah inay samaystaan maamul goboleed ibraahim yaani iyagu qudhooda xaq u lahayn inay samaystaan maamul la mid ah kaa Puntland oo kale oo dadkooda ugu taliyaan siciidow waxaad tidhi maamul kaa Puntland oo kale inay samaystaan maxaa u diiday dadka sool iyo sanaag iyo cayn baad tiri markaa SSC baad sheegtay horta waxa u diidayaan kuu sheegayaaye dee sool ama deegaankan laascaanood aynu ka hadlaynaa taariikh bay leeyihiin iyo juquraafi iyo bowdhar iyo ayay ka mid yihiin 1960kiina halkay ahaayeen waa la garanaya maalintii soomaaliya lala midoobayna dee isaaq iyo dhulbahanti kala socda iyo samaroon kala socda iyo kuwa kaloo kala socda kumaynaan midoobin qabiil kumaynaan midoobin ee waxaynu ku midoobnay somalilan oo isku duuban markii dambe ee dagaaladu dhaceenee dowladdii caanku dhacdayna heshiis baa lagu galay burco oo dowladnimada lagu dhistay maanta la haysto markaa meel taariikh taa aan ahayn oo deegaankani leeyahay oo maanta loo samayn karaa inaad yarow ma jirto xaqiiqdu horta waa taa Puntland deegaankaas soomaaliya dee ka mid ahaynu la midoobnay maalintaanu la midoobaynay dee ayagoo isku hartiya ayaanu kuwan wax naga dhexeeyey kuwaanu la midoobaynay bay kuwaasna la mid ahaayeen markaa dad isku taariikha runtii maaha haddaan xitaa taadaba kuu raaco oo aad halkaad ka duulayso aan kuu raaco oo federaalka soomaaliya aan kuuba raaco oon kaaga jawaab celiyo SSC baad tiri federaalka soomaaliya 2 gobol iyo badh 2 gobol iyo wax ka badan baa sharciga u yaalla uha halkana 2 gobol iyo 2 gobol iyo daayo 1 gobol oo la wada leeyahay baan oolay
markaan xaqiiq wada hadalno aan dulmiyeyn cidna sool SSC baad imika igu jiray deegaan ku sheegtay 18 gobol ee Soomaaliya ahaan jirtay haddaan dib ugu raaco de horta gobol cayn leeyahay kuma jiro sidiisaba ma jiro waxa soo haraya waxa weeyaan sanaag iyo sool qoladan dhul bahanti SSC meel walba gashatay may oran harti kuma jiro warsangeli oo way iska reebeen dhul bahantoo qura sheegaya marka xaqiiq wada hadlo gobolka sanaag la yidhaa ee ay sheeganayaan degmooyinka ku yaalla hal degmo kuma leh xaqiiq marka ku wada hadlo laakiin dadka degan waa ka mid hal degmo inii sheegi karaa ma jiro maanta deegaanka way degan yihiin oo ma xaqirayo laakiin hal degmo ay gaar u leeyihiinoo ayaga loo yaqaanaa inaad ma jirto waa gobolkii sanaag cayn gobol la yidhaahna ma jiro waa magaalada Buuhoodle oo markaan taariikhdeedana dib u raaco dee ha lagaga badnaada bay habar jeclaan ay ka soo baxaysay oo deegaano Buuhoodle laga xukumo ay dee habar jecel degto sida Qorlugud iyo Balle Calanle iyo Coodanle iyo Qabri Huluul iyo Carro Balanbal iyo Muraayada iyo watulooyin xildhibaan baa uga soo baxay halkaana degmo xitaa gaar loo leeyahay ma jirto deegaankii haba yaraadee dee waa la degaa sida ay u sheeganayaan iyagoo labada tuule ay ku leeyihiin sanaag ay u sheeganayaan ayaa 60 tuule ee Buuhoodle lagu leeyahay loo sheeganaya marka xaq lagu wada hadlayo oo degmadaasina mid xitaa gaar loo leeyahay maaha sool baa timi sool iyo laascaanood waa kala laba sool dee waxaa soo gelaya horena waan kugu sheegay dad kale ayaa la soo degay oo caynaba iyo xudunba waa la degaa caynabana waa degmada labaad ee ugu weyn sool oo dee waa la yaqaanaa cidda degta xudunna waa la degaa waa war jecel yahay isba deegaan bay ka noqonayaan sool marka haddaan taadaba ku raaco halkaana maamul haddii si kasta loola jeclaado uga suuro geli karaa ma jiro cali qalifna in badan buu ka hadlay nina kama aqoon badnayn nina kama fiicnayn nina kama raganimo badnayn doorashadiisi waxay noqotay markuu ka soo quustay maamul goboleed Soomaaliya ay siiso oo ay ku garab istaagto wuxuu noqday in meeshani ay noqonayso uun inay ama Somalilandtii ay taariikhda la wadaagaysay la mid wax la lahayd ka mid ahaato ama ay Puntland u gasho labadaas u bay noqonaysaa meel saddexaad oo istaagaysa ma jirto labadaa doorasho ma isu taagay deeta tuuqaata weyn ogey marka maamul goboleed halkaa yaalla ma jirto dadkuna intay maanta heshiis galaan oo dalkoodii heshiis ay la galeen iyo dadkoodii ay la galeen berina kama bixi karaan shalay baa aniga laygu dilay 1994 waxa laygu dilay waxaan ka hor yimid Somalilandtii kale kuwa ila dagaalamayay ka mid bahan dadkani reer Somaliland ay deegaanka ka hadlaysa waxa laygu dilay la isku kay tagayna Somaliland baa ka hor yimid xamar baan ku xiriirsaday siyaasigayga baa xamar galay wax ka noqday ummadii dhamaydan heshiiska la galay dalkii aan ka mid ka ahaa ayaan anoo qabiil aftuub de wixii iga raacay waa tii loogaa iyadoo taag daran oon awood lahayn ayaan jujuubi kari waayey oy toodii noqotay taydii noqon weyey khasaaran waanu galnay naf iyo maalba leh tii uunbuu gelayaa ninka kale isku tijaabiya maanta tii tun la mid ah ayuunbuu gelayaa marka waxaan leeyahay heshiiska maha maalin walba sidaa doonto iminka qoladayadu aniga deegaankaygu sidaad ku aragtay adigu baad xogta ka hayso kolba ka gudaha ku jira ee dowladda wax ka ah ee xilka haya ayay sin dagaaga ku sheegaan kuwa kale xilka doonaya oo wax dal la yaabo nin xil doonayo kursiga ku socda oo ninkii kursiga haystay deegaankiisa ka soo jeeday caayo oo ku sheegaya jin dagaaga iyo jaariyad isagana kursigii doonaya de wax laga yaabo lagu qoslo weeyaan sidoo kale qoladanna kii deegaanka ka soo jeeday horgal ku sheegaya dowladda ugu jiray ka banaanka jooga ee kursiga doonaya ka ku socda ka qaadana geesi ku sheegaya jabad kasta oo la sameeyana madaxdeedu waxay ku dambaysan Hargeysa Salaaman Xagla Tooseenooyin Ali Khaliif Kaleer Beenoogeen kuwa kale maanta qaylinayana waan hubin Hargeysa ku dambeynaya marka waxa leeyahay war mustaqbalka dadkiina ka fikiro oo waxaanu soo eednay si fog u fikray ilmaadaya
waxaa maanta kulan wada hadal dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo guddoomiyaha wakiilada cabdirasaaq khaliif. ibraahim, maxaad kulanka kala socotaa? maxaad filanaysaa ama u malaynaysaa inay ka wada hadleen labadaa mas-uul? siciidow, kulankaa waan arkayey, dad soo qorayana waan arkayey. markii aan qoraalkii arkay inuu jirana xog baan raadiyo, wuu jiray kulanka madaxweynaha iyo guddoomiyaha golaha wakiilada. waxaanan ogahay in lagu wehelinayo oona keligood weliba ahayn. madaxweynuhuna kulankaa inuu la kulmo uu ku saxnaa, oo waa sidaan uguba yeeli lahaa oo ma i tiri ayaa dee hadhow lagu odhanaya. guddoomiyaha golaha wakiiladu anigu waan ka badheerayaaye inaanu sidii saxda ahayd u socon, oo aanu in meeshaasi hagaagta u socon. dee way ka muuqataa, ficilkiisa ka muuqataa, maqnaanshihiisa ka muuqataa, dee kaalintiisii uu qaadan waayay bay ka muuqataa. marka in lagala hadlo oo la tuso oo lagu qanciyo dee inuu doorkiisii qaadan waayey, sababtay ku dhacday la weydiiyo, oo xaq bay lagu leeyahy. anigu xog kama hayo oo meeshaa wixii lais yidhi runtii ma ogi, laakiin caqliga wuxuu siinayaa in dee sidaan aniguba yeeli laha un la yeelayo, oo la odhanayo maxaad adigaa dalkii tiirkii saddexaad ahe gobolkiina ka soo jeedee siday kula noqotaa inaad sida dadka caadiga rayigooda cabiraya aad meelaha ka hadasho ee aad arrintan budhigaheedii baa tahay, maxaad u geli wey? qaran baad u dhaaratay, kitaab baad martay inaad aaminsantahay difaaciisa. waa la soo weeraray, way muuqataa. haddii dowladdu ay qaladaad gashay, kii kula xisaabtami lahaa ee ugu sarreeyey baa tahay, ee la garnaqsan lahaa, ee waxa qaldan sixi lahaa, ee haddii taladu ay wax lagu dhammaynaya ama wax lagu hagaajinaya ay guraacan tahay toosin lahaa. yacni waxaasoo dhan in lagala hadlay unbaan dee anigu aaminsanahay. wixii laga wada hadlayna cabdirasaaq khaliif dee laba buu noqonayaa nin dee isdaba qabto oo hagaajiye arrintii oo doorkiisii uu ku lahaa qaata, dowladdana kala socda, wixii ay ka dhimanna dee ku kordhiya ee isagu dan u arko. ama ninkaasuu noqon dee, ama nin magaranaysaa ka hor yimaado badheedha sida ragga kheyrkiia ayuu noqon doonaayo dee tallaabo laga qaado. anigu sidaa ayaan u arkaa, waana sidaan yeeli laha uun. waxaynu ka warsugnaa uun dee ficilkiisa iyo arrinta socota siduu uga qayb qaato, negative iyo positive ayuu mir ku daawanayna. ugu dambayntii haddaan ibraahim wax kaa weydiiyo daraskaaga siyaasiga ah, maxaad filanaysaa in haatan ay ku soo gabagaboobi doonto arrimaha haatan ka taagan gobolka sool, gaar ahaan magaalada laascaanood ee ilaa hadda aan laga gaadhin wax natiijo ah amaba se isafgarada? siciidow, haddaan daraskayga ama siday ku dambayn doontaan qiyaaso, anigu waan kala aqaanaa jacaylkayga iyo xaqiiqda, oo sidaan jecelahay waxba kuma qiyaaso. meeshan laascaanood waa la kiciyey, lacag baa la geliyey, wakti baa la geliyey, waa laga shaqaystay runtii. haddana marka dhinaca kale la eego, awood military oo intay meesha qabsato ka qabsan karta ciidamada degan iyo somalilan dee ma jirto. oo awoodba awood kaxaysa, awoodda joogta awood kalu ma kaxayn karta. marka kolleyba sidii ay ahayd inaanay noqonayn way ii muuqataa. awood taa maanta joogta kaxayn kartaana ma soo baxayso. marka awood lagu kaxeeyo somalilan, nin necab iyo nin jecelba ku kaxeeyo aanay meeshii jirin, ka buuqa magaaladiisa gelinaya yuu khasaareeyey bay su-aashu taalla. yuu khasaareeyey magaalooyinkaa ku hareeraysan ee kale khasaaruhu gaari maayo. cidda uu gaarhaya waa magaalada laascaanood, businesskeeduu gaarhaya, shaqadii socotay ee businesska ahayd ee lagu noolaa ayaa istaagaysa, way fu dhalanaysaa. cidda markaa wax la yeelay wa'ayo waxa wax la yeelay reer laascaanood. ciidamada halkaa joogaa magaalada baabishirkada kumay dhisnayn, magaalada lacag ka soo baxdana laguma biilinayn ciidanka, waxaa biilinaysay dowladda dhexe oo aan cashuuri ka soo gelin laascaanood.
wax ka soo galaani jirin dowladaha hoose waxay qaadaan waxa qashinka magaalada laga guraya haydad lagu hagaajinayo oo waliba dowladda dhexe ay kabayso marka haddii lascaanood shaqadii ka socotay la istaajiyo macnaheedu maaha in ciidamadii somalilan iyo somalilan laga xoreeyey waxa weeyaan iyagu bas la haraya iskuulkii baa istaagaya carruurtii baa istaagaysa qayrkood ma ka reebaya marka iima muuqato awood kaxayn karta awoodda joogta ee ciidamada degan meesha ee militariga ah waxaa dadkii deegaanka ka soo jeeday ayay ka mid ah oo ka shaqaynaya nabaddooda marka wada hadalkaas iyo arrintaasi waxay noqon doontaa mid wakhti qaadata wixii socday wanaagsanaa joojisa hakisa waxna aan tarin wax yeella mooyaane somalilandna meeshaan ka kaxayn aakhirkana iman doonta saaxiga keeni doonta laakiin wakhti qaadanaysa ayaa nagagu muuqata haddii awood militari oo kale ay dhinac kale nagaga timaado ama jabhad ha noqoto ciidan hubaysan ama puntland ha noqoto ama meelo kale ha noqotona waxaan ku kalsoonahay inay ku jabayaan oo ciddii soo awood isticmaasha ay ku jabayso kaga xanaaqi doonto dagaal dambe oo ay ku soo qaado deegaanada marka kolleyba anigu waxaan isleeyahay maalin ha gaadhee way dhammaan doontaa maadaama awood militari oo meeshaa lagu qabsanaya aanay jirin waxaan kula talin lahaa ciidamada halkaa jooga iyo dowladdaba in ay haddii aanay dadka qasbin oo aanay sidii hore u dhacday aanay yeelin oo aanay dadka buuqaya aan magaranaysa xabad lagu dayin magaalada haddii korka laga joogo oo waxa gelaya waxa ka soo baxaya la kantaroolo haddii alla kuu roon yahay ayaa ugu muhiimsan marka waxaan leeyahay dowladdu sidaa imika ay ku wado arrinta deganaanshaha iyo dowladnimada iyo hadalka ha ku wado arrinta waa ii muuqataa shalayba waxaad arkaysay dhallinyaro badan oo deegaanka u dhalatay oo sidii guursida u hadlaysa oo nabad ka hadlaysa iyo mustaqbalkoodii iyo iskuulladoodii ka hadlaysa dee taasiba waa tallaabadii hore loo qaaday waxaa muuqatay oo kale kuwii magaalada dhex yaacayay calamada la dhex yaacayay inay ku xaroodeen garoon oo halkaa ay ka batorinayeen oo ay joojiyeen durba suuqa ay dhex cararayeen iyo busineska ay xidhayeen marka way ka soo raynaysaa waktina way u baahantay aad baad ilaah noogu mahadsan tahay waraysiga qiimaha badan leed halkan nagu siisay waananu kaaga mahad celinaynaa sida fiican ee quruxda badan eed su'aalahan ku weydiinay uga jawaabtay haddaba iyo khayrta hawada iyo baraha bulshada naga dhegaysatay halkaa waxaa noogu soo gabagaboobay barnaamijkeennii siyaasadda iyo saxaafadda somalilan oonu halkan ka sii daynay annagoo ku waraysanay ibraahim ciidiid intaaynu mar kale ku kulmayno waa anigoo siciid ciise ileeye ah ammaane allah iyo ammaane rasuul haddii aan qallo jirin miyaad qiri lahaydeen haddii aan qallo jirin miyaad qiri lahaydeen waa qodob su'aale qof waliba siday tahay an hawqaadole waa qodob su'aalo qof waliba siday tahay an hawqaadole nibad weyniyo nimaanuba qabin aysaaniinaye aysadaaye